50 oo ah gabagabadii waxaad ogaataa in dad lala hadlo ama aad hadal samayso waa waxaan marnaba dhammaanayn waxaa suurtagal ah inuu xooggaagu dhammaado bad in hadalkaaga uusan dhammaanin oo aad weli cid la hadli karto macnaheedu waxa weeye waxaad weli taaban kartaa ama aad toosin kartaa ama aad tabantaabin kartaa inaad ummadda hadalkaaga ku hagto sidaas awgeed nimcooyinka Allah subxaanahu wa ta'ala dadka siiya waxaa ka mid ah in qofku oo laga yaabo inuu retire shaqadiisa ka yahay uu weli hadli karo waxyaabaha ugu fiican ama ugu habboon oo qofka laga rabo inuu ogaadana waxa weeye in arintaani ay tahay waxaan qofka ka dhamaanaynin oo aanan ka dhamaanin so number 1 maadaama hadalku uusan ka dhamaanaynin there is no end of it malahan dhamaansho malaha maadaama uusan dhamaansho lahayn maxaad u baahan tahay uusan hadalku finish lahayn ama hadal inaad hadasho uusan dhamaad lahayn waxaad u baahan tahay you need to get better in all the time waa inaad mar walba dooran karto ama aad fanjili karto ama aad soo saari karto hadal waliba hadalka kale intuu ka fiican yahay meel waliba meesha kale waxa aad tilaabo uga sameyn karto ama aad ka toosin karto ama aad ka tamataamin karto nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo dhammaanteen aan u baahanahay sunnadiisa inaan raacno ilaahay wuxuu siiyay xikmad hadal yar oo tagaya ama taabanaya ama qofka tusaya wadadii uu u baahnaa ama sidii uu u baahnaa ama qofku uu u fanjilan karo ama uu samaysan karo siyaabo aad iyo aad u kala duwan markaad barato ama ilaahay xikmadaas uu ku siiyo ama aad alla weydiisato subxaanahu wa ta'ala hadalku dhammaad male wuxuu kaaga baahan yahay marka maadaama uusan dhammaad lahayn always inaad isku daydo inaad improve garayso isku daydo inaad buska ka jafto waxaad arkaysaa qof ku fiican inuu hadlo laakiin aan laga yaabo inuusan improve garaynin inuusan school u aadin inuusan class u aadin inuusan ma aragtay xendaabkii ka bixin markaad hal sano ka maqnaato ama 2 sano ka maqnaato weli wuxuu taagan yahay ama weli uu la socdaa maahmaahiyihii meeshii uu taagnaa isbedel male yes qofkii hadalkii waa ku fiican yahay xikmadii waa leeyahay laakiin kobac ma samaynin qofkii inuu kobac sameeyana wax fiican waay you will never too old ma ka weynaanaysid mana ka xumaanaysid hadallada Allah subxaanahu wa ta'ala ku siiyey marka in aad garowgarayso oo aad dadka ku caawiso oo aad value ku darto waxaad u baahan tahay inaad mar walba buska ka jafto inaad mar walba diyaar garowgaa samayso inaad mar walba haanayso haddii Allah subxaanahu wa ta'ala ku fahansiiyana waxaa suurtagal ah hadalkaaga xigmadda leh sida dad badan ee xigmad lahaa ee adduunkan uga tageen oo hadalkoodii loo xasuusto in hadalkaagu uu noqdo mid la xasuusto oo gadaasha yaala sidaas awgeed in aad u diyaar garowdo oo aad ogsoonaa tahay ama aad ogsoon tahay waa wax aad iyo aad wanaagsan waaye waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa all these things aan soo diyaarinay oo aan ugu talagalnay in uu qofku fahmo hadalka muhiimadda uu leeyahay iyo inuu qof kasta uu fahmi karo in uu diyaar garoobo ama uu sameeyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax wanaagsan naga dheefsiyo idinkuna aad fahantaan si aad u fahanto powerka Allah subxaanahu wa ta'ala una siiyey ee ugu badan wuxuu ku jiraa nad gacanteena bar afkeena iyo qowlkeena asagaa nabad keeni kara asagaa colaad abuuri kara asagaa kala aamus abuuri kara asagaana saameyn badan samayn kara marka Allah nagu waafajiyo subxaanahu wa ta'ala hadii la yiraahdo